السلام عليكم. layaabka dunida waxaa ka mid ah inaad qof dhan ka dhigato ku meel gaar adiga oo ka fikiraya helida qof nolosha kuu dhameystira. tani waa caqliga foorar ee lagu ciqaabay cid kasta oo wax doonaysa. sidoo kale waa dhaqan gaar ah oo ragga iyo dumarka qaarkooda ku midoobeen ee habaabi'in rajo iyo riyo uu lahaa qof baad u sawirtay humaag aan dhabkaa ahayn adiga. qofka ku jecel waxaa ciqaab ugu filan mashquulkaaga iyo maqnaanshahaaga. fadlan ha ugu darin digasho iyo inuu dartaa u naco nolosha, bal qiyaas xanuunka uu mudan kara qof aad u beertay hawe iyo hirasha uu ka lahaa agtaada ee aad ugu bishaaraysay la qabsiga aayaha, haddana jawaab baad ugu dhigtay iska kay ilow. qof aad tustay macaankaaga iyo dhadhanka agjooggaaga ee arkay adiga oo la qoslaya cid aan isaga ahayn, muxuu mudan karaa qofkaasi? qalbi kugu xidhay han iyo hami wixii uu dunida ka lahaa ee aad filashadiisii haddana dhaawacday. tani ma ahan mala awaal, waa xaalad iyo dareen damqashadiisa leh oo maalin walba lagu dhibaateeyo boqolaal gayaankooda rajo wanaagsan ka lahaa. imisaa lagu balan furay, imisaa looga faa'iidaystay duruufta iyo rabitaankooda, imisaa sugitaankii sawir aan jirin ku waayay aayahooda. waa imisa inta ka dhacday quruxda iyo qiimaha uu guurka lahaa. waa hubaal inay yihiin tirabeel inta maalin walba uu dhinta qalbigooda, waayo waxaynu noqonay jidka sahla guusha qof kale iyo gubashada dareemadeenna. waxa aan garwaaqsaday in mid kasta oo inaga mid tahay leeyahay laba weji oo midba dhaqan iyo midab xambaarsan yahay. waxa aan ogaaday in baahidu tahay fursadda kalifaysa in lagugu dhaawaco ama lagugu sameeyo wax aadan mudnayn. sidoo kale waxa aan ogaaday in bini'aadamku kibir ka qaado qiimihiisa wax ka badan haddii aad siiso. mase ilaabin in aan nahay addoommo alle oo ay xisaab ka dambayso. waxa aan naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya towbadkeeni ka tanaasulida danaha gaarka ah ee aan xujo ugu dhigna qalbiyada darteenna u buka. ee qofna ha ku qancin waxaan adigaba ku qanacsaneen, hana u beerin rajo aadan hubin fulinteeda. go'aanka aad qaadanayso ka fiirsa boqolaal jeer si uusan hadhow kugu soo laaban natiijo xumadiisu. rabitaankaaga si xur leh u sheego, kana dhacso xaqaaga cidda aad wax la wadaagayso. dhab ahaantii waxay xoojinaysaa qof kasta oo la damqanaya fariimaha cabashada ee buux dhaafiyey laabtiisa. alla aynu ka baqno oo ciyaarta aynu ka dayno dareenkii qalbiyada ina soo danbiday. ugu dambeyn iska dhoola caddee dhib walba aad la kulanto, hana u muujin dadka xanuunka gudahaaga ah